بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان بعض الصحافة وحن آدي إذا كم هذنا غيا كسوق قبل كان كسوق قبل قشين سودوين تم مدحوينه هنا جمهورية الصومال ومان تدل كوسو نبض نقضي يسجيو مرود كوات مدحوينه سفر نسشة أما فسحة أيو مدك وقو مقنا دل كإنجليز كمجال لندن ونوصل نبض نقضي ما أنت أيو جدة ديارة عقال إنترناشنال إيربورت وكسود دقي وصل نبض نقضي مدحوينه سفر هولاد سفر كهرباء وهاي سفر تجي وحوا سفر نسشة وفسحة مركا ما أنت أيو صار نبض نقضي صلى الله سعتان جودهانا وحسب أو مدحوينه أما كلنا هولاد أو دولة إنجليز كلية شيء أما عد كلوا أي سركان وأنا هاي قويس كيسة ما جرتوا صابتها فسحيدا مدحوينياش أدون كأيو بحان فسح الله ميدا أيو مدحوينه بحي ورانك بروباغندا وايهم بسوق كوجري أها مدحوينه والله قليا مدحوينه حنوسنيا الحمد لله نينكي إلهي دلايا دينتا عذرك يا عافمات كان إلهي با هيا وحويان حقدقة يبوقدقة يحسد نمدا لليه هاي قف عن حنوسنين اخترنا انجلين لو صعدين ايو وحوي وهبار مدحوينها هنا إلا هبارو ماها مدحوينه ومدحوينها قرن معارض محافظ يكو دحدحادبا مدحوينه yahay way soo inoo soo nabad noqday guud ahaana war saxaafadeedkaygu maanta intaas ayuu ku eegay afayeen magacaygu maxamed cabdiraxmaan xisi madaxweynaha qaranku dalku ka maqnaa muddo kordhin baa la sameeyay xaalado saldhig baa jira mucaaradku way diidan yihiin miyuu tahli kari waayay madaxweynuhu shacabku dhawaaq bay ka sugayaan inuu la hadlo madaxweynuhu howlaha qaranka golo wasiiro buu leeyahay la taliyayaal buu leeyahay aniga kamida dadka u xil saaran in ay afkiisi ku hadlaan aniga ayaa afkii madaxweynaha kugula hadlaya madaxweynuhu muu tahli kari waayin madaxweynaha afkiisa aniga ku hadlaya waxa howlaha sheegtay qaranka muddo kordhinta saldhiga howlahaas howlo ka qarsoon madaxweynaha maaha markii loo baahdana madaxweynuhu bulshada si toos ah ayuu uga hadli doonaa afayeen waxa jira waaye far badan oo dalka ku gadaaman abaaraha sixir bararku madaxweynuhu wareegto ka soo saaray oo maalmihii wareegtada soo baxday sixir bararku hoos u dhacay mar labaad sixir bararku cirbu iska shararay guddiga madaxweynuhu uu saaray abaaraha jira muddo kordhimaa jira bulshada Soomaaliland waayihii u dambeysay madaxweynaha Soomaaliland oo amurahaas ka hadlayo ama warbaahinta su'aalo ka weydiinayso maysan arag bal waayahaas iyo wareegtadii madaxweynuhu meel la oran karayaa waa hal bacad lagu lisay oo hadaba sixir bararku mar labaad halkiisa ku noqday bulshaduna in badan ka cabanayso kolley jawaabta su'aasha adiga ma laayis siiyay ma oran karo wareegtada madaxweynuhu waa hal bacad lagu lisay madaxweynuhu wareegtadu soo saaray waxa weeyaan dad buu xil saaray guddi baa ku mashquulsan sicir bararkuna waa guud ahaanba wax adduunka oo dhan ka jira Soomaaliland oo kaliya maaha maciishadu marna kor bay u kacaan marna hoos bay u dhacaan sicir bararka iyo doolarka kor u kacay waa wax jira waxaanu qarinayna maaha wax sagrata maaha xukuumaduna ajendaha iyo sida kula dagaalamayso wareegtu maaha qorshayaasha dambe ee madaxweynuhu xukuumaddu ay hawlaha ay ku waajahayso gadaal baan idinka soo sheegi doonaa laakiinse ma oran karo waa hal bacad lagu lisay awaamiir baa jiray isla guddida ay soo saareen madaxtooyadu